shir looga hadlayay amniga caasimadda ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha booliska Soomaaliya, xubno ka kala socday gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga. Kulanka ayaa intuu socday waxaa looga hadlay sidii amniga caasimadda waxa looga qaban lahaa shalayna ka dhaceen qarax ismiidaamin ah iyo dagaal xigay ay mas'uuliyadiisa sheegteen shabaab. Guddiga amniga caasimadda ayaa sheegay in aan la arki karin istaaf wata dariiska ciidanka xoogga dalka ee dhex maraya Muqdisho. Sidoo kale guddiga ayaa ugu baaqay istaafka mas'uuliyiinta dowladda inay si wanaagsan ula dhaqmaan ciidamada amniga ee istaagsan isgoysyada Muqdisho. Shirka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow, wuxuuna warbaahinta la wadaagay waxyaabihii ka soo baxay shirkii amniga xalay. Waxaan kaloo iyadana aad u codsanaynaa in mas'uuliyiinta istaafkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in dharkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhex maraan magaalada. ciddii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka booliisku ay taagan yihiin inay si asluubi ku jirto, nidaam ku jiro ee ula hadlaan, isu sheegaan. haddii kale waad aragteen kooxaha hargixisadu dharkaas tuutaha ayay soo wada qaateen oo kusoo dhex dhuuntaan. marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta istaafkooda inay mas-uul ka noqdaan. waxaan ognahay istaafyada qaarkood oo in ay xabado marmarka qaarkood furaan maalayacni ah, isla xisaabtan dhanba baa jira. qaarkoodna waxaan u gudbinay maxkamadda ciidanka qalabka sida. marka qof walba mas-uula ha ogaado asaa mas-uulka ah istaafkiisa. iyadana waxaan rabnaa arrintaas in gudoomiye Yariisow ayaa dhanka kale wuxuu ugu baaqay wadayaasha gaadiidka biyalka iyo mootobajaajta inay isdiiwaan geliyaan. gudoomiyaha oo sii hadlay ayaa wuxuu sheegay ciddii aan isdiiwaan gelin in loo arkayo inay caqabad ku tahay amniga caasimadda. midda kale oon rabno inaan digniin u jeedino waxay tahay ma leedahay bajaaj, ma leedahay gaadiid. haddii uusan gaadiidkaaga diiwaan gashanayn, haddii aad gaadiidkaaga diiwaan gashatay laakiin aad qofka iibisay magacaaga weli ku qoran yahay, mas-uuliyadda adaa qaaday. adaa mas-uul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhib ah uu geysto. si haddaba taas looga hortago, bajaajlaydu iyo baabuurta kaleba waxaan leenahay isdiiwaangeliya. ma leedahay bajaajka, isdiiwaangeli. haddaadan isdiiwaangelin muwaadin dhab ah Soomaali aadan noqon, canshuurta lagugu leeyahay aadan bixin, haddaba waxay noqonaya qof u adeegaya cadow. ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay hal cadow, halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argixisada al-shabaab. ayagana inaan hal meel ugu soo wada jeesano oo aan la dagaalno ayuu qorsheenu yahay. hadalkan ka soo yiri guddiga amniga caasimadda ayaa imaanaya iyadoo Muqdisho ay ka dhaceen maalintii shalay ahayd qarax gaari laga soo buuxiyay iyo dagaal u dhaxeeyay koox hubeysan iyo ciidamada amniga, waxaana labada dhacdo wax ku noqday tiro dad iskugu jira shacab iyo ciidan.